waxaan u wanaagsan asxaabteena qaaliga ah waa markale barnaamijyadeena waxaan idin tusayaa routerka internetka guryaha qaabkii aad u configureysan lahayd marka uu kaa reset garoobo amaba se calaamada resetka uu kaa noqdo ayaan idin tusi doonaa hadii la iminka tusaale kayga oo kale halkaas wuu ka baxay bay ka dhigan tahay sida caadiga ah ma shaqeynayo waa kaas disconnect buu leeyahay laakiinse wax internet accessibility ah ma leh oo lama gali karo internet no internet access waa kaas leh markaas qaabkii aad u buuxbuuxsan lahayd ayaan halkan idinku tusaya marka koobaad waxaa soo furaysaa browserka kuugu jiro browserada kuugu jira mid kamid ayaad soo furaysaa anugu iminka google chrome ayaan soo furaya haddii la yidhaahdo google chrome kan laftiisa waan ku furi karaynaa marka koobaad waxaan leenahay 192.168 eber dhibic hal ayaan leenahay kadib intaas ayaan ku qoraynaa browserka enter ayaan leenahay enter markaan dhahna kadib halkaas bannaan ayuu noo keenayaa username iyo passwordku noo keenayaa usernameka inta ugu badan wuxuu admin weeyaan sida caadiga shirkadu markay ku siinayso warqada koobaad admin ayay kugu qorayaan iyo waxay ku siinayaan IP-gaaga IP numberkaaga marka labadaba admin iyo passwordka iyo usernameka ku qoranaa eeda hore waa small letter login ayaan leenahay login markaan leenahay pagekan iyuu noo keenaya interfacekan iyuu noo keenayaa interfaceyadaasuu noo keenaya marka pagekan markuu noo keeno kadib inaan buuxbuuxinaan doonanaa maadaama inaan buuxbuuxinaan doono configuration aan u soconno set up ayaan leenahay ninka tusaale waa sida caadiga wadamada africa badankooda waxay isticmaalaan PPPO-gaas ay isticmaalaan laakiin inuu ku shaqeyn waayo uu kan ku shaqeeya laga yaaba labadan midkood ayuu kuugu shaqeynaya kan kore ayaan ku tijaabineynaa ka IPOE daasaan tijaabineynaa markaan saas u tijaabino IPEO-da markaan sidaa u tijaabino halkan ayaan imanaynaa waxaan ku qoranaa halkan IP-ga maalinka shirkadda oo aad warqadda kala saxiixanayseen number IP ayay kuugu soo qoray marka tusaale kayga oo kale haddaan ku qoro IP-gaasaa lagu qoraa ka warqadda ku dul qoran ee shirkaddu ku siisay weeyaan IP-gaaga saxda ah ani iminka tusaale kan ayaan ku qorayaa submaskiga waxaa la yidhaahdaa netmask iyo submask waxay ku kala duwan yihiin kan waa 255.192.192.eber weeyaan kan kale waxaa la yidhaahdaa remote IP amase waa kan la yidhaahdo gatewayga la yidhaahdo weeyaan kanna waa default weeyaan waa isagana waa 151.48 eber hal weeyaan 10.151.48 weeyaan markaas iyadoo sidaas ah halkan lafteeda VPI-ga halka ku qoran 8 baa la qorayaa halka VCI-gana 81 iyaad ku qoraysaa 81 markaa ku qortid saasuu nagaga dhan yahay add ayaa leedahay add markaad tidhaahdid halkaa hoose add markaad tidhaahdid halkaa hoose oo imanaya app waa kaas soo noo soo qorayo internetkiina waa kaas soo dhacay markaad app uu halkaas soo qoray internetkiina oo soo dhacay markaas qaabkaas ayaa loo buuxbuuxiyaa adigoo oo aan u baahnayn inaad u yeedhatid shirkadaada adoo gurigaaga jooga ayaad buuxbuuxsanaysaa haddii aad IP-gaas waa inaad haysatid laakiin ka ugu muhiimsan waa IP-ga warqadda lagugu soo dul qoray maalinka aad warqadda shirkadda kuu saxiixaysay ay ku siisay ka ku dul qoran ee IP addresska kaas inaad haysatid waa khasab kuwan kale waa default waa iska qabsan karaysaa hadda kuwan kale laakiin kaas hore ee 36 anugu ugu dambeysay oo kale ma qabsan karaysid aad baad u mahadsantahay barnaamijkeena aad ula socoteen waqti aad joogtaan oo wanaagsan ayaan idin rajeynayaa goob walba goor walba aad joogtaan dhammaantiin